السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما بالشوين الصومالية مركو أروي سلامي وأنا جيتيم كي تي بي جي وإذن لما أنا ونكسل أن مالتو تاريخ التاي أن أبكم ينبي الله تبشي كواد تدبي تبنكيدي أن وحنا كسبنا هو ينما أحمد موسى وهيسته قبل رارق نافكة أن أسماء جامع عبدي maaha markii koowaad soo booqano shalay toolan u nimid hadaan nahay bahda TBG anaga doonayna xogteeda rasmiga ah iyo marxaladda ay ku nool yihiin inaan soo ogaano oo xogaal u noqono kullu kliibkii aan soo dhignay meediyaha waan idinku sheegnay inaan bari toolaadii Ilaahay qadar ku soo laaban doono oo maanta ah oo 17 bisha ah alxamdulillah way noo suurta gashay waana muxuu ahaay la fadhinaa هو ينمع واتن دنعاga bidix fadhida soo kala asmeerna dhankayga midig soo kala waxa igu weheliya hadaan ahay afhayeenkii isku xidhii iyo waliba dhaqaale soo ururka TBG hawada lamaanaha indhahala walaashay Xamdi Cabdi Sagsag oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka TBG oo iyaduna muxuu ahaayay asma burburkeeda midig fadhida iyo sidoo kale qasnajigii ururka TBG walaashay qaali Saacid Maxamed Cabdi maanta ujeedkan halkan u nimid waxa weeyaan kulli xogtii waan ma garanaysaa xilnay alxamdulillah in wixii ururku karaankiisa ahaa shalay toole ballan qaadanay inaan ma aragtay aan guddoonsiino hadii Ilaahay qadaro insha Allah biidhnillah kareem balse inta ka horeysa kulli waxaan bal warbixin yar weydiin lahayn hooyada dhashay muxuu ahaayay Asma soo dhawow asmana balooga warbixi goormay indhabeeshay qaabkay indhabeeshay kun hooy bulshooyinta Soomaaliyeed waan salaamaya meel kasta joogan salaanka bacdi asma 5 bilood bay jirtay waxa ahayd 2013 tabeedna bishii 8aad waxaan geeyay dhakhtar indhaha lilmaan ku arkay way dilmeenayeen tabeedna dhakhtar baan geeyay dhakhtarkii wuxuu soo qoray dawo khalada dawadii waan ku shubay habeennimadii markaan ku shubay waxay noqdeen indhihii huruud jirkaanka 20 saliid ka cunaabay weegaadeen ka bacdi hiid bay sameeyeen way soo baxayeen marka qofku soo waago ma eekaneen way soo baxayeen indhihii mid bay sidii bay ku soo dhacday mid baa hadhay way dilaacday deemayada xuubay ku dhex noqotay ishii inka iyada xuubkii aan hayno wax yar oo dhaacaan ku istaagay bay isla wada cadaatay way iskiga dhex jirtay midna way soo dhacday waa goof inta ka bacdi dhakhtarkii subaxnimadii waan ku celiyay waxaan ku dhakhtar wada adeer dawadani qoray inanteedna wada saa ku noqotay deedna wuxuu guri adeeran ma qorin warqadii baan tusay deedna markaan warqadii tusay guri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun adeeran waxba kama wadin waxyaalo ismaan lahayn wuxuu tarbaan islaha ilaahay amarkiisa qadar bay sidan ku dhacda deedna taanantiiray saasay noqotay deedna adaygi waxaan ku yiri maalinta macshirka la qatay la qaawan yahay naaha taada halkaas inuu ku xisaabtamina deedna aniga intaydeereed waan la cararay halkan geyn kariyay dalkan marin kariyay waan soo mariyay Afrika badidiisa dabadeedna sidii baan anu wali asma u dadaalaya oo la tacaalaya baad arkaysaa wata asmeer alxamdulillah rabbil caalamiin ma hasantii hooyo dhakhtarka waxa noo sheegtay in markii aad warqadii tustay wurina la weynay raajican kadibna uu jeebkiisa gashaday warqadii iga qaaday dawooyinkiiba jeebkiisu gashaday okay laakiin miyaan wax caawima wallahi ka tahay ma ogaba imikada alaanka ma oga mudooyinka 2 bilood ka soo wareegtay ilaa 3 bilood bishan ku daro 3 bilood ka soo wareegtay baan u tagay markaan u tagay waxaan ku rinantay ma garanaysaa doctoro markaas uu guuri ma garanayo bal indheeda ka waran maan ku oo sidee wax looga qaban karaa deedna inanteedu waagay wuxuu guuri inanteedu wax beddelka laga qaban karo Afrika dhamaanteeda kula daarin dibad mooyaan dalka waxba laga qaban karay hay'ad ku salaamaya baan ku ka soo bax laakiin wax caawimay maadaama isagu dhakhtarkii indhaha ka riday uu yahay ma bay soo gaba laakiin meel bisku ogaanaya hooyo qadaro asma san miriyaha ka maqalnay agoon weeyaan carruurtu waa imisa carruurtu waa 4 صح iyada iyo 3 kuray weeyaan xalay toona markii aan ku imo waxaad ii sheegtay curadkaagii inuu maqan 3 bilood ma hayo isaga ka haye marka 3 kala ii jooga imika
markaas ma tahriibis ma garanayo meel jigay iminka afar ban halkan ku galaa aad arkaysan sax marka waa afar kuray iyo inta hershantaas weeyaan ciyaalku isagu maqan yahay kaasi de mooji dhimay ay nool ah wali kama warami kara de hooyo itaalkaygu inuu siino qofan kaga tagay xitaa kuwan ma haysto sax waa ciyaal uu aqligooda ku filayno way iska wada dareereen ku ciyaartigeen sax hadan xitaa kaga tagay inta kaga ma tagaba saasay uga tagayaan de waxba kama oga gurigi iyo hawlihii iyo inantii yaray toona saasay isku daba jiidaya meeshan aad ii sheeg aad digantii meeshan waa dariiq inamadan weydiisanay inankana kamida oo gurigan ilaaliyo waashmeena sax dabeedna inamadaasaan weydiistay waxaan ku walaalo idinka yarkaaya inanteeradna iga waalataanba ka baqanaya meeshan barakaca dhowr jeer baan ku gubanay marka waxaan doonayaa waxaan doonayaa hooyaad meeshan iyarsiisaan degee walaal halkan in iska soo degay inta wadooyinku kala baxayaan sax dadna inankeena dul taagan wuxuu ugu jawaabay waayay iska soo dego hadii wadada soo baxda nasiibka baad qabtaa waayay baan ku leeyahay nasiibkay baan qaba sidii baan ku soo degay halkan waxaad ii sheegtay meeshan deynay maaragtay meel cidla ah oo dacawadii iyo waraabihii iyo wax kastaaba siidka imanayaan shanta gal inaad xalay toole ii sheegtay in ma garanaysaa habeenkii seexanba ma saaxda habeenkii saadiga ciyaalka markaan saa u seexiyo aanu bartaa iminka kadinkan fadhiistaayoon maraa dabeedna waxa dhacday habeenimo meesha jooga habeenna la ii soo dhacaa xitaa dhacdan waashmeennadu maqnaayeen dabeedna inama kale igu sayaaceen dabeedna qayladeedi markii doow iska ka dhuftay nin buu ahaa uu carra sax dabeedna waan qaban kari waay iminka inamada insha Allah xagan iga dambaysa buulkoodaan ku daba dhijistay oo buul yar iyagu leeyihiin baa iga dambeeya dabeedna iminka halkaas mid baa seexda xagan iga horeysana mid baa seexda laakiin intii daa qaylayaan intay suuqa ku maqan yihiin baa garay gabal ku dhac waraabi iyo ninkii wala iyo kii kale iyo sakraankii iyo balaayo dhan baa halkan imanaysa waayo magaalo koonaheedu weeyaan waxaad ka warantaa adigu maxaa ka shaqada haysaa diilka aanu wax alla waxaan hayaa ma jirto wata qudradeen iibinay wada engegtay sax marka qudradda ayaan baan alxamdulillah iska warwareega intaas baan iibiyaa maalin dhawood baan keenay musqayb awiya sax awiya waa kuwa nimanka qaaran ku fadhino kuwa kalena waa kuwa leegama iibsan halkan mid gaaris soo yartaabo kuwa kuwa dadna imika waxaan oo la daadinaya insha Allah iska soo qorso qabatana malena wada hadlayso wali wata qaystay waatan halkan ku qabo waatan xabuubti walaalo asma maxaad ummadda islaamka iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed ka codsanaysaa waxaan ka codsanayaa ina dhakhtarishayda la geeyo oo shayda lagu hagaajiyo oo wax barto saad qeyrka ula jaan qaado hadda wax ma barataa may gurigaas ka dhex fadhiya waxa ma baratay waxba ma barto insha Allah bismillaahi kariim bulshada Soomaaliyeed ku maqlaysaa insha Allah baaqaagana waxaan rajaynaynaa inay ka soo jawaabi doonaan hooyo ugu dambeyn insha Allah bismillaahi kariim maxaad ka codsanaysaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda muxsiniinta oo kulli way jeedaan way arkayaan halkan dhex fadhiyo dabadeedna horta muhiimadu waxay tahay qofku meel u galo haduu haysto waxba kama xuma anu weyno ama yaro waa caarun baad caar gidaar fadhiyana waa laga qurux badan yahay marka bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay indha naxariis leegu soo eegaan eegan khayr iyo barakan rajeenay waxaad noo sheegtaa oo bulshada ku daawanaysa u sheegtaa lambarkaaga telefoon lambarkaygu waa 430 1214 430 1214 saad malay ولي magaca kuugu qoran muxuu yahay nimca Axmed Muuse ku qoran nimca Axmed Muuse ayuu soo baxaya insha Allah biidmillah karim cidii
aragta insha Allah kula soo xiriiri doonta hadii Ilaahay qadar insha Allah biidnillaahi kariim halkan imika waxaan ku guddoonsiin doonaa haddaan nahay bahdi TBG hooyo Nimco Axmed Muuse oo ah Asmeer hooyadeed lacag qadarkeedu yahay $300 oo lagu talagalnay inaan maaragtay aan kala qayb qaadano marxaladan ay ku jirto hooyo Nimco lacagtaas insha Allah biidnillaahi kariim guddoonsiin doonaa intaanan guddoonsiin waxaan maaragtay u mahadnaqayaa dhammaan walaalihii lacagta soo baxsaday oo ah walaalaha reer Sweden oo leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajri xasanaad idinka siiyo dhammaan bulshada kalena aan leeyahay ku soo dayda insha Allah biidnillaahi kariim qasnajigan ku wareejin doonaa oo guddoonsiin doonta lacagtan qadarkeedu yahay $300 hooyo wad aragtaan hooyo Nimco telefoon numberkeedu weydiin qortay anaguna insha Allah shaashadan ku soo qori doonaa darab raali ka noqdo cidii gooni la soo xiriiraysa waa ka cidii wax noogu soo hagaajinaysan insha Allah san maanta buu ku keenay ugu keeni doonaa marka insha Allah qasnajigan ku soo dhaweeyay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maama Nimco assalaamu calaykum calaykum assalaan hooy maama marka hore aad iyo aad baan ku salaamaya waxaana ku guddoonsiin doonaa hadii Ilaahay qadaro lacagtii ururka hablaha aragga naafada ka ah tafbalan gaaralis insha Allah $300 aad baad u mahadsantahay maama macaan hooyo macaan waa kaawan qiyaas $300 ba alxamdulillah rabbil caalamiin Ilaahay meeshaad ka soo saarteen idinku bedelo farxi iyo naxariis وندين دعينا يا هوي آمين آمين إن شاء الله بإذن الله الكريم دمان بالشوية الصوماليات وحن قاعد سنة لهذا بهذه TBG إن قيس كان سيجارة الله صايغو وأركتان هو يجا وجمهم سنة لشة هو يجي ما هيستان وضداسي ماركتي متايرة ودسنة بول كايرة وكل حيالة مركا إن شاء الله بإذن الله الكريم ديفكا وحليسكوية هاي إفكا ولا للوية هاي آخر واحد بالله يسكو معها مركا إن حريص للوجو صايغو إنك الله يسكو كان إيجيا إن شاء الله بإذن الله الكريم aad iyo aadna waan idin salaamay codsiyadan inay kasoo jawaabi doontaan ma rajeynaynaa waa bahdi TBG oo idin leh maalin wacan oo wanaagsan